bal ila dhageyso qof walba oo maanta xumaan faafinayo qisadan ayaa waxay tahay wiil muslim ah oo iska dhalinyarada kamid ah ayaa wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay internetka marka wuxuu soo saari jiray sawiranta xunxun wuxuu xiriir aad iyo aad u la yeeshay shirkadahan sawiranta xun faafiya saaxiibadii markii uu la fadhiistay way weydiin jireen xaqiiqada ka keentay sawiradan yani ma inoo soo dirtid noo sheeg website-kee baad ka soo qaadataa ilaa oo aakhirkii dambe uu ku yiri lacagta iska keena aniga ayaana emailkiina idigu soo dirayo mid walba wuxuu siiyay emailkiisa emailka saaxiibkii emailka walaalkii bas wiilkii shirkadii ayuu la heshiiyey lacagtii ayuu contract kula galay dabadeedna emailadii dadkii uu ka qorqoray ayuu automatic ugu program garay halkaas wixii asiga u soo dhaca ay automatic u aadayin inta email oo loo soo qoray saaxiibadii markuu la soo fadhiistay wala sheekaysan jireen ma sha Allah hada wiigan sawiranta xunxun aad ay u fiicnaayeen dadkii de wadada iska qaafilsan 6 bilood markuu saas ku waday ayuu shil baabuur ku dhintay wiilkii shil baabuur ayuu ku dhintay wala soo duugay wala uu soo kala tagay meeshii saaxiibkii oo qishada ka sheekeynaya wuxuu dhayahay isbuuci oo dhintay markii uu dhintay kadib ayaa waxa ii soo dhaceen message kaas oo asiga ii soo diray oo sawiradii xun markaas ayaan wuxuu yiri waxaan is yiri maya message kan mar hore ayuu soo diray laga yaabaa adi ayaana telefoonka furin waan iska dileed ayuu yiri waxa ahaayeen sawiran qurune oo kuwii hore camal bas wiigi labaad ayaa haddana waxa ii soo dhacay sawiran kale cusub oo xumaan markaas ayaan waxaan ogaaday ayuu yiri in uu sawiranta automatic uu emailada ugu xiray qabriga asiga oo ku jiro ayuu xumaan soo diray subhanallah ogaw qof walba wixii xumaan oo ka tagto wali uu ku sii soconayaan waxaan wacnay ayuu yiri shirkadii oo contractiga la galay waxayna yiraahdeen buu yiri nasiye passwordkii ama kelmadii sirta ahayd ee aad contractiga nagu la gashay hadii uu qofkan dhintay aad run sheegaysan waxaan niri wuu yiri ma naqaano qofka uu dhintay kelmadii passwordkana ma naqaano way diideen buu yiri waxayna yiraahdeen waxa uu haray 4 sano iyo bar la ilaaha illa allah asiga oo qabrigiisa ku jiro ayuu xumaantii sii faafinay maxaan ula jeedaa taas qof walba oo maanta xumaan faafinay ama YouTube ka ahaato ama Facebook ama internetka meelaha kale ha ahaato ogaaw hadii aad caawa dhimato cidna intii YouTube ka gasho ku dileed gareemayso xumaanta aad faafisay cidna intii Facebook ka tagto waxa xumaan aad faafisay cid tirtiraysa ma jirto wax walba aad shaqaysatani maalinta qiyaama kitaabkaaga ayuu baad ka helaysaa Allah subhanahu wa ta'ala markuu yiraahdo اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكلفر كتابك وآخرسو اسحكن أذيك هلكا مالك بدو قادونتا سيدا الدراديد والله هدي افرنتان كسو قارتو إلهي وكو جعليها أغاو اسكد الليت ترتر وحوال بقو حمان أدمان تفافسي هدا التاني سايستا هدا انت نفتك وجرتو كفى إيديسو هدي كلا وحا إيمان أغاو وحا إيمان دونتا مالين الله سبحانه وتعالى وكهذا الشين دونه قعما هذا لغا هذا يجيركا غودان يكونا مقاتي فردونا وحوال بقو حمان وآت سميس ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قفل بقوسو نقضو وأقبله الله سبحانه وتعالى نآدي يغفر حق الدومدي سمركي أصول لابتان والله وحني تقول تلني نفتي يا إذنكم إن الله أنقن سكدين حمان تفافنين وحلق فائدي أياني جرين خل آية القرآن هل حديثة
وأد قفك لقاسيسيد أي لغاية بإنه الله سبحانه وتعالى كوجدا بدافو وجنة كوجي لغانا يابي هل حمان أطفافيس إن النار كسببته سبب قلتان كت سبب أو نقط سيدا الدراديد ولا ليل وحيد ولا تلنيه اللي سكدا يحمان تلفافيني الله نقرآنك وعد أيكم مرئينه الدون كان الدل يكون ولان دونان آخرنا عذاب آدي حنون بدن لو عذاب دونه دتك حمان تفافية ننجعل إني لحفافته دتك اللي رسول آمين سيدا دراديد اسكجوجي حمان تلفافيناي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحوانذا إدي سجدني أني وهو الكنوان وحانا إذا قعدتني إنك تيجر سيسين ولا ليه نكلته سئوان أقول نقطة لغيا بإن هذا أذيك هذا كعمل فلم بس قفك لو كعمل فله وكل رقمه سيدا الدراديد سيفا في خيرك إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرية قف البؤفا فيه إنه دنبيسه يدنبي والدين تيسه المسلمين تودان أودافه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.